xilli muddooyinkii ugu dambeeyay roobab mehigaan ay ka daayeen qaybo ka mid ah deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa waxaa roobabkii ugu xooganaa maanta ay ka dayeen degmada Boocame ee gobolka Sool kuwaas oo khasaarayaal hantiyeed oo kala duwan u geystay shacabka ku dhaqan deegaankaasi. roobabkani oo daayay muddo saacada ay waxay saameynta ugu xoogani ku yeesheen xarumaha ganacsiga ku yaala deegaankaasi Boocame ee gobolka Sool iyo sidoo kale isu socodka gaadiidka oo lagu soo waramay inuu hakad ku yimid. haddaba si aan faahfaahin dheeri uga helno saameynta roobabkaasi ay ku yeesheen deegaankaasi Boocame ee gobolka Sool ayaa waxaan khadka telefoonka degmada Boocame ee gobolka Sool kula xiriiray wariye Cabdinaasir Yaasiin Faarax oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanka Boocame ee gobolka Sool ugu horeynba aan wax ka weydiiyay bal sida ay tahay xaaladda deegaankaasi iyo khasaarayaasha ka dhashay roobabkaasi. Aniga waa jirtaa arrintaasi roobab mehigaan saacadihii la soo dhaafay saacadahan ka dhacay degmada Boocame ma garatay. adigu goobaha ganacsiga goobaha khasaaraha u geysteen waxaa ka mid ah goobaha ganacsiga sidoo kale kaalmaha shidaalka meherada macnacaanka iyo waxyaalaha lagu gelisay iyo meel ay isku yimaadaan dadka halkaasi laga cabo shaaha ama waxa loo yaqaano qaxwaha ma garat weliina iyo ma jirto cid wax isku socod oo ama dhanka shacabka iyo gaadiidka oo weli furmay iyadoo xiran yihiin ma garat waa tahay Cabdinaasir marka laga yimaado khasaarahan soo gaaray xarumaha ganacsiga ama goobaha ganacsiga ee ku yaala deegaankaasi Boocame ma jirtaa wax khasaaraha oo soo gaaray shacabka ku dhaqan deegaankaasi ma jirto weli hada waxna soo gaaray adeegan dib wax naga soo gaari doonaan ma garat laakiin warka ay sheegayaan ama warka qaarkood ay soo gaarayaan ma jirto wax khasaaraha oo dhanka dadka roobkaasi waa tahay Cabdinaasir Yaasiin Faarax ma duufaan baana khasaaraha inta la eeg soo gaarsiisay goobaha ganacsiga ee degmada Boocame ee gobolka Sool mise roobab mehigaan oo duufaano culus watay ayaa khasaaraha inta la eeg soo gaarsiiyay deegaanka Boocame roobab culus oo mehigaan ka dib duufaanana wuu watay ma garat marka duufaanadii iyo bidicii xoog badnida ku dhacay ayaa khasaaraha faraha badan soo ma garat marka roobku sidaas u jayro duufaan xoogan buu watay iyo dhibic xoogan ay watayeen marka sidaas ayaa khasaarahaasi ku dhacay ilaa hadda inta dhanay waa tahay Cabdinaasir marka laga soo tago khasaaraha roobabkan ay soo gaarsiiyeen xarumaha ganacsiga ee ku yaala deegaankaasi Boocame ma jirtaa wax khasaaraha oo soo gaaray shacabka ku dhaqan deegaanada ku hareeraysan degmada Boocame maadaama Boocame ay tahay deegaan aad u weyn isla markaasna ay hoos tagaan deegaan aad u fara badan ajirmaan faasi wali wax oo waran ka hayna ma jirto laakiin waa isku dayna inaan xiriir ka sameeyno oo isla markaana la xiriirno dadka ku dhaqan tuulooyinka ama deegaanada kale hoos yimaada degmada Boocame taasina ma ay soo gelin iyadoo markii hore muddada intii badneedna uu shaqeyn waayay network oo waxaan keenay jirin inta kale waxaa jirta wax koronto ah gudahaan baad ka shaqeynaysa deegaanka ma jirto kadib markii roobku khasaare badan u geystay halkaas waa tahay Cabdinaasir Yaasiin Faarax ugu dambeyntii xaaladda guud ee degmada Boocame ee gobolka Sool haatan waa sidee haddii dhageystayaashii anagaba sawir guud aad naga siiso xaaladda guud ee deegaanka ma bixi karna weli taas wax kama bixin karna sababtoo ay tahay gurigeygiiba aan soo fiidin ama xaafadda ka degana magaalada weli kama aana bixin laakiin telefoonada qaar dadkaan kula xiriiray waxay sheegayaan in aysan weli waxba ka xaqiijin karin taasoo tahay biyaha aad u badan oo geliyaanba suuqa magaalada ka xiray iyo wadooyinka dadka iyo gaadiidka iska gooshinayeen waa tahay dhagaystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdinaasir Yaasiin Faarax oo ka mid ah wariyaasha madaxa banaan ee ka howlgala degmada Boocame ee gobolka Sool oo khadka telefoonka ee degmada Boocame aan kula xiriiray aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir.